بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan la hadlayaa khaas aniga magacayga waa Cabdimajiid Maxamed Cayilweyn. waxaan joogaa Balli Busle oo ka mid ah gobolka Mudug, khaas degmada Jariiban ka tirsan. waxa weeye taariikhdu maanta waa 3 bisha Diseembar 2025. waxaan halkaan rabaa inaan kala hadlo oo aan dadka Soomaaliyeed horta ugu baaqo dhammaantood meel joogaanba inaan Ilaahay ka baqno oo maartay Ilaahay u laabano oo dambigan 40 sano ku soo jirnay warbatada inoo geystay oo maanta heerkaas aynu marayno ina gaarsiiyay aan Rabbi uga noqono oo Rabbi aanu maartay subxaanahu wa ta'aala haddaynan u noqon inagoonba inoo daranta. يعني إلهي غني وعندهم مباهنا إنه أي الله أباهن واحد يبينا هيستنا وهو حين شقي سنة ويا وإلهي بالقرآن كذا كل شيء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يقول الله سبحانه وتعالى. سادرات ديد وحين شقي سنة بدنا كم ذا وحين كل عياه عين إلهي وقال الله بنو سبحانه وتعالى وامد كواد هذين إلهي الله بنو إلهي كرئي هوسبا nimcooyna ka siinayaa. dowladnimada waynu gaari karaynaa. markaa dowladnimadu waxay u baahan tahay nabad iyo walaalnimo iyo isgarabsasho iyo isxiriirin iyo ishagaajin iyo isasixid iyo sulux iyo wanaag ka shaqayn bay u baahan tahay. waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad. qofkii hadda gardaro ku dhacdo bay u baahan tahay. taas marka waxa weeye haddii aynu Ilaahay u noqono innaga islu goynaye Ilaahay waa inoo gargaarayaa. shaki la'aan wey. khaasatan marka walaalayaal sidaas guud ahaan Soomaali meel joogno ma kala maarano. Hargeysa xamar kama maaranto, xamarna Hargeysa kama maaranto, Boosaaso Hargeysa xamar kama maaranto, xamarna Boosaaso kama maaranto, Kismaayo kama maaranto, Hobyo kama maaranto, Garacad kama maaranto. Soomaali ma kala maaranto, Raaskamana ma kala maaranto, bal kuweena ka maqan kama maarano oo waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala bayna ku ahaatay maanta iyaga inaynu joogno. sidaa daraaddeed walaalayaal dowladnimo wax ka sharaf badan ma jiraan. maanta meeshan marna waa u jeedaan iyo heerkeena marna waad aragtaan in dadka adduunka madaxda qaar ka mid ah adduunka inay caayayaan ku halqabsanayaan oo waxaan oo dhan ku sheegayaan inagoo taagtaagan. maanta waxay noo hadlayaan aynaan hayn oo hadda inaga oran kara dadka la jooga mooyaane wax kale oo dowladda la hadashana aynaan hayn oo ninkaas oo kale u jawaabtana aynaan hayn. waan meeshaynu isdhignay wey. wax walba meesha isdhigtaa lagu qalaabaa la yiri. marka waxaas tusaale inoo tahay aynu isu noqono inaga isku hordhan inagaana walaal ahaan kala maarmin. xidiga shanta gees leh looma samayn khalkii sidii loo sameeyey sax bay ahayd, waana sida ugu habboon bay ahayd. sida hadda inoo kala qaybqaybin inoo kala kaxaynayana waa sida ugu liidato raba in la kala diro oo waddankeena la iska qaato way bedel loo doonaya. saas darteed horta markii koowaad waxaan leenahay aynu garabka is qabsanno oo kulli qofba madaxweyne noqonayo cid aynu u dhiibanno qabyaaladii qurunka aynu iska dayno. intaa waa guud ahaan Soomaaliya oo dhan baan leeyahay. si gaar halkan waxaan uga mahadcelinayaa dadka walaalaha ah oo aan wada degannahay gobolka Mudug, khaasatan dhinaca Galmudug nagala degan. waxaan leenahay walaalayaal waa isu baahannahay mana kala maarano. kaliya waxaanu ku kala maqannahay waa dowlad la'aanta. waxaanu ku kala maqannahay laakiin inaan is dhex degno baan xaq u leenahay. dadka waxaan taageersan la is dhex dego oo la isu yimaado, laakiin hadda aysan muuqan la is dhex degi karo oo waxa wixii xunaa ina ka qabo wixii qofkii xun haddaan cid qabata la helayn oo dawladda inoo dhaxaysa inaan hayno wixii wada qabanaysa inaan hayn waxa weeye intaynii fiicnayd intaasaa bi'inaysa. marka wada degeena hadda galkacyo waa la wada degan yahayo Ilaah baan ku badbaashay runtii. alla ka soo dadka jooga oo laba dhinacana way ka shaqeeyeen nabadda oo lagu wada joogaa. laakiin reer miyiga haddii la is dhex galiyo ama la isu soo dhaweeyo ama la is dhahdo is dhex gala lama aamini karayo wax ka soo bixi doona. xilliguna waa adag yahay. marka inta aan dowlad ka helayno walaalayaal waxaan taageersanahay waxa weeyaan inaynu maartay wixii wanaag ka wada shaqeyno. dadkaana hadda aan bartanka la isugu shubine maartay xoogaa la kala waardiyeeyo. sababtoo ah waxa weeye haddii xumaan dhexdooda ka dhaco wax damin karaa ma jiraan. saad aragteen galbeedka gaalkacyo wixii ka dhacay oo ka bilowday muddo dheer oo muddo socday weli waa dogay meesha gaadhay waa la socotaan iyo dadka ku dhintay intuu fara la egyahay ilaa haddana halkeeda rasmiga ah waa la gaari kari lahay. marka hadda Ilaahay baa mahad leh oo ina kala badbaashay oo aan ku mahadinayaa subxaanahu wa ta'aala. muddo dheer
dhinaceenna ilaa jariiban ilaa iyo maarata gaalka inta u dhaxaysaa waana ku mahadsantihiin weliba idinka khaas ahaan saacad waxaan leeyahay khayr badan Allah idin siiyo waana ku mahadsantihiin nabadda dhinac aad ka shaqayseen dhinac walbana waa idinka rabaa nabadda inaad ka shaqaysaan haddana walaalayaalow yeesan maarata dhicin wax yara oo maartay oo la iska ilaawi karo yaan dhib dhexdeena lagaga shaqayn oo inagu adhow maartay dhibka haddii la abaabulo marka dambe isku dhacba imaanaya hadduu isku dhac yimaadana waxa weeye walaalayaal farahay ka baxaysaa dadka inta xun baa talada la wareegaysa dadka inta xun baa talada markaa la wareegaysa oo yacni waxa weeyaan markii xumo bilowdo dadka wanaagsan awal baa maartay aan la maqlayne markaasna waa kasii daraynaa hadda waxaanu ku haynaa walaalayaalow ama hala kale helo walaalayaal hala wada hadlo walaalayaal hala heshiyo walaalayaal waana fiicanta hadda laftigeeda wax shakiya ma qabo way hagaagaysaa laakiin waxaan leenahay walaalaha khaasatan sacad waxaan leenahay khayr badan Allah idin siiyey dulqaadkiina aad sii wadeen sii wada insha Allah mar dhow baynu isdhex geli doonaa hagaagi doontaa oo waxaan kaloo codsanayaa annagu ilaa iyo jariiban ilaa iyo meesha la Balli Busle mar baan walaalaha sacadka soo marinay oo wafdi ahaan iyadoo ay la socdaan ciidanka isku dhafka la socdaan ciidanka isku dhafkana waa mahadsan yahay ay la socdaan baa ilaa Balli Busle soo marinay oo ay yimaadeen waxaan rabnay in la wado maarta wafdigaas ilaa habyana wafdi anaga ka mid ah aan tagno dadka ay tagaan oo dadku is arkaan oo dadka hadda waa loo kala warramaayo bal inay arkaan dad jariiban iyo Balli Busle iyo cadoon ka yimid cadoonka kale ka yimid inay arkaan walaalaha degani hubaya iyo inta ka sokaysa degani inay arkaan oo bal la sheekaystaan oo aan loo kala warramin hadda ayaa muddo dheer ismaynaan arag ilaa 91kii in la ismaqlo mooyaan dadka wadanka deganaad isma dhexgelin marka wax kale oo kale ama bahalaba isu qabnaaba marka tartiib bay nabaddu ku imanaysaa sidaan isku ogeyn waxay ahayd in wafdi kale halkan ka tago oo cadoonkan jariiban dhulka ka yimaada ilaa iyo Balli Busle ka tagay inay tagaan ilaa iyo iyaguna hubiyo dhulkaas iyo tuulooyinka ay tagaan lagu soo dhaweeyo bay ahayd taasi waxay keenaysaa isdhexgalkaas iyo iska warqabkaas iyo salaamidaas iyo sheekaysigaas is-aamin badan bay keenaysaa walaalayaal marka taas aynu ku hormarino wax walba haddana walaalayaal wax yar ka ah oo jira wax yar baa dulqaad ha la sameeyo oo walaalaha sacad khaasatan waxaan leeyahay dulqaateen walaalayaal dulqaata si aan dulqaadin dulqaata idin leenahay dadkaygana waa la hadalaa har iyo habeen oo aan la joogno kale baan ka wada idinka dadkayga waa tihiine laakiin kuwa la joogno waa la hadalaa har iyo habeen waxaan ku qancinaa dadku inuu kala maarmin oo walaaluhu kala maarmin meel joogaan baan ku qancinaa in badan oo kamid ah oo aan arag dhulkaas ama dadkaas aan arag anagu ilaa iyo dadka maartay anigu waxaan kamid ah guddiga khaasatan waxaan kamid ah dhalinyarada isdhexgalka gobolka mudugna waa madasha isdhexgalka waa ku jira culimada waa ku jira maartay wanaagga wax ka raadinaysa Balli Busle raggii kusoo dhaweeyay baan ahay wafdiga ka yimid ilaa iyo garaac ka yimid ilaa iyo hobiye ka yimid baanu ahayn rag badan baana garanaya innagana sidoo kale marka isdhexgalka aan wadno salaamida aynu wadno isu tagga aynu badino isdhexgalka aynu badino oo dadka horta madaxda iyo odayaasha iyo nabadoonnada iyo culimadu hadba meel walba ha tageen hal lees arko subaxba meel hala tago subax dambe si fiican baa la isdhex geli doonaa wax dhiba ma leh walaalayaal marka waxaan la codsanayaa intaas waa dheereeyey waxaan leenahay ka codsanaynaa madaxda labada maamulna inay ka shaqeeyaan nabadda ay ka shaqeeyaan waxaan ka codsanaynaa walaalaha maartay dhexgalka iyo nabadda ka shaqeynaya inay ku dadaalaan walaalayaal si aynu dowlad u helo qabiil ma kala ahin isku dad baynu nahay aynu dowlad saynu u helno dadka fiican aynu dooranno oo madax ka dhigano oo walaalnimada ka shaqeynaya isu keenida ka shaqeynaya Soomaali ma kala maaranto waana isu tagaynaa insha Allah si kastoo loo kala celceliyo insha Allahu kariim hal ogaado dadka la celinayay dad wanaag u wada maaha laakiin dadka isu keenaya ayaa wanaag u wada waa dheereeya walaalayaal waxaan leeyahay hawsha nabadda oo la wado oo haddaba meel walba laga wado ha la sii wado ha lagu dadaalo runtii waqti badan baan gelinaa haddaan ahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo gobolada labada gobol ka kala yimid dadka inaan la hadalno wacyigelino oo aan u sheegno dadku inay walaal yihiin Soomaali wax kale ku kala maqnayn dowlad la'aanta ay ku kala maqan tahay iyo colaadii sokeeyo oo aan wali la xallin iyadana marka inay dhammaan doonto walaalayaal haddaynu tagno badaheena iyo badda kaliya aan ku filan haddaynu nabad helno badda kaliya wallaahi na ku filan haddaan Soomaalinahay kulligeen inta shanta qaybood oo Soomaaliya tahayba wallaahi badda kaliya ana ka badan haddaynu nabad helno nabadda la diiday nabadda aynu ka shaqeyno nabadda la diiday nabadda aynu ka shaqeyno nabadda la diiday aynu nabadda saynu u sameeyna ka shaqeyno walaal suuqeena madaxda Soomaalida ee gobolada maamulada kala duwan haysta waxaan leenahay war sharaf idin ma aha dadka inaad kala dhinaan isku dilaane sharaftu waxay idinku dadka Soomaaliya isu keentaan markaasaad magacna helaysaa xaq rabbina ilaahay raadin ka noqonaya walaalayaal waxa Soomaalida dadka isu geeyo oo raadiyo oo Hargeysa ka daga oo Xamar ka daga oo Boosas ka daga oo meel walba ka daga oo walaalnimada raadiya
فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.